إمام أئمة الإسلام كمدا أي إنك يسكواني وكوعدي ولقى ابن آدم قال لك جلها سعران رالي نقول ماي 10 كان أنا كنت سنة نمر بوكي لعله إنها إمام الشافعي رحمه الله سقيا يركي سيبات صومر مارك تاني تولو ضمير باي مركا وطن ضمير قال لبدو دي من ما صارنا باليدي وين لقينا يعني dadkii tuulada joogay baa ku yiri war labadan bila aqliga maxay ahaayeen maxay dameerka muumidkoodna dameerka fuulo midna muu kaxeeyo markaas uu aab hadalka ma maqlaysaa ha dhageysa buu hadalka qor hadana marka odagii baa fuulay tuulo kale ay soo mareen dadkii tuulada fadhiyay waxay yiraahdeen war odagan duqay bila naxariista waa maxay ilmaha yar daaliyay muu isaga ka weyn uu ka dhaadhaco ilmaha yar muu dameerka saaray bay yiraahdeen markaas uu aab taano qor buu ka yiri oo ka dhaadhaco marka isagii buu saaray haddana tuulo kale ay soo mareen markaasay dadkii yiraahdeen war ilmahan bilaa damqashadii waa maxay bilaa naxariista odayga ka weyna aabiye da'da muu ixtiraamo oo dameerka uga dhaadhaco isagu lagayo isaga ka xoog weyne markaa burtaana dhageyso haddana tuulo kale ay soo mareen ayagoo dameerkii labadoodiiba ay wada saaran yihiin markaaba dadkii tuulada afraad yiraahdeen war labada bilaa naxariistii waa maxay soo kuwa dameerkii dilay ma ka dhaadhacaana markaasuu yidhi sow kumaan lahayn bini aadanka raalligelintoodu waa qaayo aan la gaadhi karayn haa waxaad ku dadaashaa haddaba allihii ku abuuray un raalligeli buu ka yidhi imaam ashaafici raximahullah ayaa arkay nin meel fadhiyo aad u murugaysan markaasuu la fadhiistayoo oo u yimidayoo waxa uu u yidhi ma dhib baa kugu dhacday buu yidhi dhibaata masiibaad moodaa inay ku haysatee markaasuu yidhi haa dhib baa igu dhacdo masiibo oo dhan baa igu dhacday buu yidhi aniga oo maxay masiibada kugu dhacday buu yidhi wuxuu yidhi waxaan noqoday dadkii iyo aniga yacni dadkii cid aan la heshiisahay ma jirto cid walba waan kala go'nay buu yidhi hooyaday aabbahay waa kala dhaqaaqnay qaraabadii waan kala dhaqaaqnay xaaskii ilmihii waa kala dhaqaaqnay asxaabtay waan kala dhaqaaqnay dadkiina xaggaabay iga mareen aniga keligay baa xaggaa socda buu yidhi dee dhibaato ka weyn may jirtaa buu yidhi markaa sheekhu uu eego wuxuu gartay ninkan isagiyo ilaahay jalla wacalaa xidhiidhka u dhexeeya inuu meesha ka maqan yahay buu garto su'aal buu weydiiyo wuxuu ku yidhi 100 qof inaad raalli gelisaa iyo mid keliya inaad raalli gelisaa bal kala dooro markaa buu yidhi midka keliya fudud buu yidhi marka waliba midka keliya hadduu raalli kaa noqdood raalli gelisid 100ka kale isagaa kaa raalli gelin buu ku yidhi markaa buu yidhi waa kee markaasuu yidhi waa allah markaa buu yidhi sheekh khayr allah ku siiye buu yidhi halkii leega haystaad ii sheegtay buu yidhi nambarkaasaa iga qaldanaa buu yidhi xidhiidhkii anigiiyo ilaahay baa meesha ka baxay buu yidhi xidhiidhkii addoon iyo ilaahay ka dhaxeeyey ayaan gooyey deedna waxaan noqday taarig caasi baan noqday ghaafil baan noqday baciid can raxmatillaahi baan noqday khayr allaha ku siiyo halkii leega haystaad ii sheegtee ilaahay baan u toobad keenayaa buu yidhi dadku maanta nolosha inta badan way fahmi laayihiin war noloshaada walaalayaal waxaad ku fahmi laadahay wax kale ma aha haddaad ilaahay ku abuuray wuxuu ku abuurtay haddaad garatay waa cibaadadiisa waa daacaddiisa waa cabsidiisa waa ilaahay raalligelintiisa waa ilaahay ridihiisa inaad raadisaa taaba adiga lagu abuurtee haddaad arrinkaa ku dadaashid noloshaada oo dhan ilaahay baa kuu hagaajin yaa inoo hagaajin allah baa inoo hagaajin nolol wanaagsan baad doonaysaa shaqo wanaagsan baad doonaysaa gabadh wanaagsan baad doonaysaa shaqo wanaagsan baad doonaysaa ubad wanaagsan baad doonaysaa madax wanaagsan baad doonaysaa dadnimo wanaagsan baad doonaysaa soo ma doonayno malika doonayo gacanta taag waa wada doonaynaa soo ma nolol fiican gabadh fiican oo diin leh shaqo wanaagsan oo barakaysan dawlad wanaagsan oo khadamaad waxaad uga baahnayd oo dhan aad ka hesho dal wanaagsan dad wanaagsan wax wanaagsan buu qofka bini aadanku rabaa qof bini aadan oo wax xun raba adduunka dusheeda ma jooga baa la yidhi
طبيعة إنسانك عين كاس ما دام وحو ناسا أدون يسد إلهينا وحور ربا إن النقطد أدون إلهي ونكسد